waa barnaamijka ogaal. Waa anigoo ah Ubax Ina Suldaan iyo soo saaraha barnaamijka Maxamed Shooki. Bilowgii Alice hal-abuurka baabuurka Talyaaniga ah ee halyeyga noqday. Luca, naqshadeeyaha madaxa, ayaa la ilmeeyey quruxda qorax dhaca, taas oo dhalisay fikradda Alice. Isagoo fadhiya bannaanka, isha ayuu ku hayay habka dabiiciga ah ee iftiinku ugu dhex milmayo mugdiga, wuxuuna arkayay sawirka gaariga mustaqbalka maskaxdiisa. Bilowgiiba Luca waxa uu qaatay qalinka iyo warqadda si uu u muujiyo aragtidaas. Sawirro hore iyo kuwa dambe oo naqshadaynta Alice ah ayaa miiska ku baahay. Mid kastaaba wuxuu ka tarjumayay riyooyinkiisa oo qalin lagu muujiyey, isagoo tallaabo u sii dhowaanayay muuqaalka gaariga uu hiigsanayo. Dhiirigelinta dhaqanka Talyaaniga ee Luca ma ahan mid la dhayalsan karo. Naqshadaynta Alice waxay ahayd isku dhafka farshaxanka iyo farsamada oo ay weheliso taariikhda hodanka ah ee naqshadaynta Talyaaniga. Luca wuxuu doonayay in gaarigu noqdo astaan u taagan hal-abuurka iyo quruxda dhaqankaas. Teknoolojiyadda iyo dhaqanka ayaa ku milmay Alice. Luca iyo kooxdiisu waxay doonayeen inay abuuraan gaari aan keliya ku faanin casriyeynta farsamada laakiin sidoo kale xambaarsan taabashada dhaqanka ee waara. Tani waxay ahayd isku day ay ku doonayeen inay ku dhex geliyaan xikmadda dhaqameed ee Talyaaniga gudaha unugyada casriga ah ee gaariga. Soo bandhigidda kooxda riyada waxay ahayd tallaabo kale oo muhiim ah. Luca waxa uu isu keenay koox ka kooban naqshadeeyaal, injineero, iyo farsamayaqaano leh xirfado kala duwan balse wadaaga hal riyo inay Alice ka dhigaan mid nool. Kooxdan ayaa noqotay qoys ku midaysan halgan iyo hal-abuur. Luca iyo kooxdiisa ayaa waqti badan ku bixiyey doorashada matoorka Alice. Waxay raadiyeen matoor ku habboon xoogga iyo xawaaraha gaariga, taas oo muhiim u ah inay ku guulaystaan tartanka suuqa. Matoorka la doortay wuxuu ahaa mid casri ah, isku dheelitiran, bixin kara awood sare, iyo waxqabad la isku halayn karo. Midabka iyo naqshada jirka Alice ayaa ahaa qayb kale oo muhiim ah. Luca iyo kooxdiisa waxay doonayeen inay abuuraan muuqaal soo jiidasho leh oo ka tarjumaya awoodda iyo xawaaraha Alice. Kadib falanqayn dheer, waxay go'aansadeen midab gaar ah iyo qaab dhismeedka jirka oo soo bandhigaya bilicda iyo hal-abuurka. Farsamada gacanta ayaa door weyn ka ciyaaray soo saarista qaybaha gaarka ah ee Alice. Kooxdu waxay adeegsadeen xirfadahooda si ay u sameeyaan qaybo tayo sare leh oo si fiican ugu habboon gaariga. Tani waxay xaqiijisay in Alice uu yahay mid ka duwan gaadiidka kale ee suuqa yaalla. Markii ugu horreysay tijaabinta xawaaraha Alice waxay ahayd daqiiqad xiiso leh. Gaariga ayaa la saaray dhabaha tijaabada si loo hubiyo waxqabadkiisa iyo awooddiisa. Tijaabadan waxay muujisay in Alice uu ahaa mid ka sarreeya filashooyinka, isagoo soo bandhigay xawaare cajiib ah iyo xasilooni. Caqabadaha farsamo ee ka soo baxa naqshadaynta ayaa ahaa kuwo aan laga fursan karin. Si kastaba ha ahaatee, Luca iyo kooxdiisa waxay ahaayeen kuwo u heelan inay xalliyaan dhibaatooyinkan. Waxay adeegsadeen xirfadahooda iyo hal-abuurkooda si ay uga gudbaan caqabadahan, taasoo keentay inay hagaajiyaan naqshada iyo waxqabadka Alice. Luca iyo kooxdiisu waxay ku howlanaayeen qorshaynta daahfurka Alice, gaariga cusub ee suuqa caalamka kala kulmi doona indho-sarcaad. Waxay diiradda saareen inay abuuraan munaasabad daahfur aan hore loo arag, taas oo soo jiidan doonta indhaha warbaahinta iyo xiisaha jacaylka baabuurta. Markii Alice la soo bandhigay, jawaabta suuqa waxay noqotay mid aad u xiiso badan. Macaamiisha iyo suuqa ayaa si weyn uga falceliyey, taasoo muujisay xiisaha iyo baahida loo qabo gaarigan cusub. Tani waxay siisay kooxda fursad ay ku qiimeeyaan waxqabadkooda iyo inay hagaajiyaan meelaha loo baahdo. Luca wuxuu fahamsan yahay muhiimadda hagaajinta joogtada ah ee Alice. Kadib helitaanka feedback, isaga iyo kooxdiisu waxay bilaabeen inay dib u eegaan
naqshada iyo waxqabadka si ay ugu sameeyaan hagaajinno muhiim ah, taasoo ka dhigaysa Elise mid sii casriyeysan oo soo jiidasho leh. Hal-abuurku waa udub dhexaadka horumarka Elise. Luca iyo kooxdiisu waxay mar walba raadinayaan fikrado cusub iyo tiknoolajiyad si ay u sii hagaajiyaan Elise, isla markaana ay ugu hayaan hore ee tartanka. Tani waxay ka dhigan tahay in Elise mar walba ku jiro safka hore ee hal-abuurnimada. Tiknoolajiyadda cusub waxay door muhiim ah ka qaadatay in Elise ay ka sareyso tartanka. Kooxda ayaa ku daray tiknoolajiyad casri ah oo ku saabsan naqshada iyo waxqabadka, taasoo ka dhigaysa Elise mid ku kala duwan suuqa oo leh astaamo gaar ah. Daryeelka faahfaahinta wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dhismaha gaariga Elise, halkaas oo kooxdu si aan kala joogsi lahayn ugu howlan tahay hubinta tayada iyo hal-abuurka. Tani waxay damaanad qaadaysaa in Elise uu noqdo astaan u taagan farsamada gacanta iyo naqshadaynta hal-abuurka leh, taas oo suurtagelinaysa inuu ka dhex muuqdo suuqa baabuurta. Xafladda dabaaldega guusha Elise iyo kooxdeeda ayaa ahayd dhacdo xusuus mudan, halkaas oo dhammaan xubnaha kooxdu ay isugu yimaadeen si ay u dabaaldegaan guulaha ay gaareen. Tani waxay xoojisay isku xirnaanta iyo wada shaqaynta dhexdooda, iyaga oo u dabaaldegay guusha la taaban karo mashruucooda. Mustaqbalka Elise waxa uu u muuqdaa mid ifaya, iyadoo qorshayaal horumariyeed oo cusub la diyaarinayo si loo sii wado hal-abuurka iyo horumarka. Kooxdu waxay diiradda saarayaan horumarinta tiknoolajiyad cusub iyo suurtagalnimada inay soo bandhigaan qaabab cusub oo Elise ah oo suuqa ku cusub. Dhaxalka Elise ayaa loo arkaa mid muhiim u ah mustaqbalka shirkadda iyo warshadaha baabuurta guud ahaan. Kooxda naqshadaynta ayaa ka shaqaynaya sidii Elise uu u noqon lahaa halyeey mustaqbal, isagoo ku dayasho u noqon kara jiilalka soo socda ee naqshadeeyaasha iyo injineerada. Saamaynta Elise ee bulshada ayaa ah mid aan la inkiri karin, maadaama uu beddelayo aragtida dadka ee ku aadan baabuurta supercar. Waxa uu muujinayaa sida hal-abuurka iyo tiknoolajiyadda cusubi u keeni karaan isbeddel dhinaca wanaagsan ah, isla markaana u korin karaan xiisaha iyo wacyiga dadweynaha ee ku aadan horumarka waara. Iskaashiga caalamiga ah ee Elise uu la yeelan karo shirkadaha kale waa fursad weyn oo uu ku ballaarin karo saamayntiisa suuqyada adduunka. Shirkadaha tiknoolajiyadda sare leh iyo kuwa naqshadaynta ayaa noqon kara lamaanaha ugu muhiimsan ee Elise, taasoo oggolaanaysa inay si wadajir ah ugu guulaystaan caqabadaha suuqa ee cusub iyo inay abuuraan hal-abuuro cusub oo ka soo baxa iskaashigooda. Safarka Elise laga soo bilaabo fikrad ilaa xaqiijin waa sheeko cajiib ah oo muujinaysa awoodda hal-abuurka, adkaysiga iyo iskaashiga. Waxay bixisaa tusaale qurux badan oo ku saabsan sida riyooyinka weyn loogu beddelo xaqiiqo muuqata, iyadoo la adeegsanayo dadaal wadajir ah, hal-abuur leh iyo hufnaan. Elise ma aha oo kaliya guul shakhsiyeed, balse waa astaan muujinaysa waxa suurtagal ah marka la isku geeyo maskaxda hal-abuurka leh iyo farsamada casriga ah.